nimanku ku soo qaataan ayay dooxa ku shubaan sheerna way kula jiraan dooxa jaamacadda ku taalo biyaha sidaa qulqulaya waad quusanaysaa haddaad rabto idinku indhihiina ku soo arka magaaladu waa urtay jajabku waa uray waddan ma hayno caafimaadna ma hayno waa lacagna laga qaadaya oo bilaa taaba wakaa hooyadana waxay ka mid tahay dadka ku ganacsada suuqa qudaarta iyo hilibka ee Hargeysa waxaana ay ka cabanaysaa dawladda hoose ee Hargeysa oo ay sheegtay inay gabtay shaqadeedii iyadoo u waramaysay gudoomiyaha xisbiga u culin Injineer Faysal Cali Waraabe oo kormeer ku marayay suuqyada magaalada Hargeysa sidoo kale gudoomiyuhu waxa uu booqday xarunta dawladda hoose ee Hargeysa inkasta oo albaabka uu istaagay uu xidhnaa waxaana halkaasi ugu cabatay hooyo hortaagnay dawladda hoose inkastoo aanay dhammaystirin waxyaabaha ay kaga cabanayso dawladda hoose ee Hargeysa marka waxaan doonayaa in la igala hadlo xisbiga UCID uu hogaaminayo madaxweynaha xisbiga UCID Injineer Faysal Cali Xuseen madaxweyne ku-xigeenka Aadiyan iyo waliba madaxda kale ee xisbiga UCID haddii aanu nahay gudida suuqa waaheen aad iyo aad baan ugu faraxsannahay haddii aanu nahay shacbiga reer suuqa ku dhaqan suuqani waxa weeyaan suuqa ugu weyn Somaliland gaar ahaanna caasimadda waa suuqii u baahnaa in wax laga qabto waa suuqii u baahnaa in caafimaad laga sameeyo waa suuqii u baahnaa in saldhig loo sameeyo waa suuqii u baahnaa inay suuliyeeyo meelahay ku faraxashaan ay helaan waa suuqii u baahnaa inuu muxuu ahaye waxyaabo fara badan oo tansiilaad uu helo ma hayno haddii aanu nahay suuqa waaheen dawladda laba jeer baanu aragnaa markay dadka danyartaa ay doonaysa inay codkooda xaaraan ku qaadato iyo marka ay cashuurta doonayso cashuurtu kama habsaanto dawladda laakiinse shaqada ay ku lahaayeen waajibka u lahaayeen marnaba ma qabtaan Injineer Faysal Cali Waraabe oo la hadlay dadweynaha waxa uu sheegay in loo baahan yahay in laga tashado dawladaha hoose ee dalka waxaan u imanay inaanu eegno bal xaaladda nadaafadda iyo dhibaatooyinka waxa tabanaysa aan ogaano idinku noo waramin isha macallin waana aragtay waxa meesha ka taagan bulaacada socota waanu aragnaa hoogta walaalayaal daarta waxa dhisay dawladdii aynu ridnay qabiilkeed ayaa magana saayna xasuuqday dhistay maanta waxa weeye tan aynu haysnay 28 sanadood taasoo kale way dhisi kari waayeen ismaan lahayn Hargeysa waxay u darsan doontaa dadkii la soo magacaabi jiray ee xamar laga soo magacaabi jiray ayay u darsanaysaa ismaan lahayn kuwii maanta jooga waxa garanaya qura wax cun moojaa wax qaban garan maayaan waxay noo ballana madaxweynaha waan u teginaa haddii uu go'aan ka gaari waayo aan ku midaysanahay dawladda hoose meerada bilaa sharciga haddii ka gaari waayo go'aan baarlamaanka 7 bilaa sharciga haddii go'aan ka gaari waayo ku wada jirno ilmaha ayada aabihii dhintay guurta laga dhigayo u dhaarinayo Saleebaan gaalgaarinayo oo cid kale ka wakiila Saleebaan ka wakiila waxaanu sameeynaa baawarka quwadda ugu weyn ee ummaddu waa shacbiga weyn maalinta wadnaas soo baxo albaabadeenu ka soo saarinaayo yaa leeyahay waay maalinta yaa leeyahay waay meheradaha xidhanaysaan baarlamaankeenu qabsanaynaa guurteenu maqsanaynaa madaxtooyada soo taagna ilaa la kala diro dadka Xasan Galayd wararka Kebel Hargeysa adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida